aad baan idin salaamayaa saaxiibada meel kasta aad joogtaan halkan waa hadaleynta 14 saaxiibada ku soo dhawaada muuqaal kooban aynu ku eegi doono su'aal ku saabsan qofku jecel mise qof aad jeceshahay haddaba qofkii ayaa dooranaysaa saaxiibada arrimahaas inuu falqeyn doonaa nolosha ayaa u dhaxayso in lagu jeclaado ama inaad wax jeclaato waana arin iska caadi ah oo dhacda maadaama aad adigu wax jeclaan kareyso sidoo kalena adigana lagu jeclaan karayo haddaba haddii ay dhacdo in aad adigu qof jeclaato adigana qof kale oo ku jeclaado maxaad sameyn doontaa midkee ayayna tahay inaad jeclaato haddaba su'aashaasi waxaa loo baahan yahay qodhaad inaad ka jawaabto laakiin iminka ayaan ku jawaabaya aniga waxaa halkan kugu soo bandhigi doonaa saaxiibada qofka ay tahay inaad dooratid weliba sababta aad ku xulan doontid haddii aan runta ka hadalno su'aashan waa mid markaasi aad u adag sababtoo ah dhinaca waxaa jira qof adiga ku jecel sidoo kale dhinaca kalena waxaa jira qof adiga jeceshahay haddaba jecelku waa dareen xoogan oo kalgacayl xambaarsan waxaana uu yimaadaa sida dhabta qofku markuu ku jecel yahay shuruud la'aan ayaana ku jeclaanaysa qofkaasi si aad adiga ugu jawaabto su'aashan waxaa laga yaabaa in su'aalo badan oo kale oo ku soo dhacaan qalbigaaga sida waa sidee fursadaha qofka aad jeceshahay isna ku jecel yahay mise kan jecel ayaa farxad geliya ama farxad siin doona maxaa yeelay wuxuu fahansan yahay qaybo kamid ah noloshayda laakiin midka aniga aan jecelahay يعني wax kasta way sameyn karaya laakiin mar kasta waxa aan sameynayo ma ay sameyn karayo tusaale ahaan waxaad wada saarantiin doon adiga qofka ku jecel waliba qofka aad jeceshahay doontu way quusanaysaa waana in aad badbaadisaa laba qof adiga waliba qof kale waana in aad markaasi go'aansataa qofka aad badbaadinayso adiga oo eegaya waxyaabo badan si kastaba ahaatee waxaan aaminsanahay kaliya waxa badbaadinaysaa qofka jeceshahay sababta ay tahay markasta qofka markaa jeceshahay muhiim ayuu ku yahay haddaba si kastaba ahaatee aniga ahaanteyda haddii la ii dooran lahaa ama aniga aan dooran lahaa waxa aan dooran lahaa qofka jecel sababtoo ah qofka jecel waxa uu markaasi u xambaarsan yahay dareen gooniya markasta way xanaaneynaya waana uu tixgelinaya kadib daraasad la sameeyay 85% waxa ay doorteen qofka jecel sababtoo ah waxa uuna markaa shaki ku jirin jaceylka uu qabo in uu wax badan markaasi ka bedelayo laakiin markasta waxa haboon marka adiga lagu jecel yahay aniga qudayda waxaan doortay in aniga la jeclaado saaxiibada muuqaalkan intan ayaan kusoo gunaanadaya waan kusoo gabagabeynayaa waxaan idinka codsanayaa in YouTube ka hadaleynta 14 noo subscribe gareysaan saaxiibada waana mahadsantiin